بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 22 August 2019 xafiiska xeelaanta guud ee Puntland wuxuu saxaafadda la wadaagayaa inuu la socodsiiyo in maxkamadda sare dowladda Puntland ay mudeysay garmaqalkii kiiskii Aisha Elias Aadan ayna xukumaanayaal ka ahaayeen Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame Cabdishakuur Maxamed Dige Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame kiiskaas oo ay cabasho u qaateen maxkamadda sare saddexda xukumane waxay mudeysay 17 bisha 8 2019 si kale haddaan u iraahdo August 17 2019 sagaalka subaxnimo ee maxkamadda mudeysay in garmaqalkaas ay dhageysato ayna ku dhageysato xarunta maxkamadda sare ee dowladda Puntland ee Garowe intaas ayaan doonayaa saxaafadda in la wadaago mudeyntaas iyada